بسم الله الرحمن الرحيم. أنا واحد هذا جعفر يوسف عبد الله. مركو روح أنا ربنا هذا عليو. هنفضي برودكشن. صاحبك يوسف عرب. يا صاحبك أن صوّد كرني وقت بدنا صوّد قاعدني. عبد الغفار. وأيه سبورتك تاريخ دي سبورتك عن كسوقاتي لأنه ilaa childhoodkayga caruurnimadeedii runtii aad buu mataqaana Cabdi Qafaar ragii aan soo kornay buu ahaa aad buu ugu warqabaa anigu sportiga waxaan ka soo bilaabay xaafadahan ka soo bilaabay sharaa'adan waxaan ku soo biiray 2004 baan ku soo biiray dhamaadkeedii waxa jira xili sharaa'ada markaan ku biirinay la iskama biiri jirin waa adka sharaa'ada si lagu galo الله نحرسه إلياس عبد النور باوحو قبتي كوب وحو قبتي سيربيا marka waxaan wadan jirnay koox leeyahay Inter Africa oo runtii markaas dhaqaale ahaan iyo awood ahaan kooxda markaas gaalkacyo kooxaha ugu mataqaan awood badan ku jidhay yaraanteedii waxaan jirooningan ka ciyaar jirnay xaafadaha waxaan isla soo ciyaarnay oo isla soo kornay oo childhood meel hoose aan ka soo wada bilawnay waliba hadda sawirada waa la helayaa 2004 meelahaas wuxuu ahaa saaxiibkay Ibrahim Qalar saaxiibkay kala jiray asna markaa waa naga dacyaraa waxa la oran waxa la Saadiq Yare daahan uu naga yaraa laakiin asoo nin yar ah buu hadana ma taqaana wuxuu ahaa nin very talented ah oo ma taqaan rag weyn buu la ciyaar marka anagu waa ka weynin laakiin wuxuu ahaa nin talented oo ma taqaana buu soo ciyaarnay anigu ciyaar ahaan waxaan xaafadaha ka soo wada ciyaar jirnay macalinka xulka kubadda cagta Puntland Ibrahim Qalar asayaan isla soo kornay Sera P Sera C Sera A ilaa ma taqaana markaan garoomada aan ka baxnay oo ma taqaana ninkaas aan xasala ahayn nin aan waxa weeyaan saaxiibkeena ahaa walaalkeena ahaa waqti badan ma taqaana waxaan ahaa reer Israac oo xafid Israac aad looga yaqaano kubadda cagta iyo areas qaamadi iyo ma taqaana qaamadi actually waa xilli dambe magac qaamadi xilli dambe u yimid laakiin koor waxaan ahaa dhalinyaro ma taqaana qaamadi waxa la oran karaa rag dhexe oo ma taqaana waa dambe ma taqaana la kowsaday area qaamadi laakiin anigu waa ka horeeyay qaamadi oo waxaan ahaa dhalinyaradii markaas xaafadaha Israac ma taqaana lagu yaqaan inta ka bacdi waxaan soo galnay Inter Africa baanu ma taqaana baanu garoomadii ma taqaana ku soo galnay Ilyas Cabdunuur Allah u naxariistay waxa runtii barbaariye ayuu ahaa Ilyas Cabdunuur baa markaas iyo oday la oran jiray Yusuf Cirfe asna Allah u naxariis dhintay marka dibadaha ka imaan jiray ayaana empower gareyn jiray maaliyadaha iyo kubadaha intuu Yurub ka yimaado nasiin jiray ma taqaana ciyaarsiin jiray oo empower gareyn jiray ka bacdi rag waxaan ahayn dhaqaale ahaan iyo wax isku tirsano waa soo baxnay Sera aada ayaa ma taqaana markii aanu koobkii Serbiyada markaan qaadnay runtii waxaan ka xusi karaa kooxda markaa awood lahaa kooxda Nabtel koox la oran jiray oo ay ka soo baxeen markaa ciyaartoy khatar ah ay ka soo baxeen ayaa ma taqaana nala challenge gareyn jiray ka bacdi Sera aada ayaanu ma taqaana ragiyagii markaa u khatarsanaa Sera aada loo qaatay waxaan ka xusi karaa Ibrahim Qalar oo markaas waxa weeye asna kooxdii maxaa la oran jiray B center ee qaadatay iyo aniga oo markaa ay qaadatay koox la oran jiray dawladda hoose ma ahan dawladda hoose hadda jirta magaca dawladda hoose xilli dambe isbedeshay dawladda hoose waxa la oran jiray markaas koox uu wadan jiray nin la yiraahdo Naciim ciyaartoydu markaa waxa ka ahaa ragga khatarta ah laga xusi karo markaa gobolka ugu cad waxa nin la oran jiray Hurfe Kaka waa ma taqaana wuxuu ahaa key player oo ahaa kooxasan ku biiray waqti yar baan u ciyaaray kooxda markaan u ciyaaray ka bacdina waxaan ku biiray kooxda Banaadir saaxiibka Ibrahim Qalarna wuxuu ku biiray kooxda liyaado P Center ka bacdina wuxuu kaga sii biiray kooxda la oran jiray Comset oo markaas garsoor baa la oran jiray ka bacdi wax isku bedeshay idana Comset isku bedeshay Banaadir baan waxa la qaatay waqti fiican oo runtii markaas ciyaartoy khatar ah ku jiray waxa kamid ah ciyaartoyda kooxda Banaadir u ciyaari jiray waxa kamid ah Muqtaar baa kamid ahaa yar la oran jiray Maxamed Nuur baa kamid ahaa waxa kamid ahaa Muuse Gaab nin la oran jiray difaac bala ahaa oo khatar ahaa baa kamid ahaa
waxaa ka mid ahaa aadan jinool in la oran jiro asna mataqaanaa khatar ah baa ka mid ah indos inay dhihi jireen oo baa ka mid ahaa dhalinyarada koonfurta gaalkacyo oo kale baa mataqaanaa ragga ugu cadcad oo khatarta ka ah koonfurta gaalkacyo baa waxay u ciyaari jireen kooxdan banaadir waxaa kooxda banaadir kabtan iyo founder u ahaa kabtan garre oo mataqaanaa la wada yaqaano kabacdi kooxdii markaanu la wareegay oo mataqaanaa waxaan ka noqday key player baan ka noqday kabacdi waxaan ku soo daray saadiq yaro oo markaas da ahaan iga yar laakiin in laacib oo very talented ah baa ku soo biiray iyo Jani iyo nin la oran jiray Jani oo isna koonfurta dhalinyarada ugu cadcad khatarta ka ah waxaan u ciyaareynay kooxdaas ilaa meel fiican baan la soo gaarnay ilaa 2008 2005 ilaa 2008 waxa weeye kooxdaas waxaan ka ahaa key player ciyaar qatar waxaan xasuustaa ciyaar waxa jirtay oo aanu hal iyo eber uga badanay kooxda dowladda hoose oo la oran jiray ciyaar waxa jirtay koobkaas wuxuu ahaa one day cup oo waxa weeyaan koobkii maalinta haweenka ciyaar kale waxaan xasuustaa Humabaro oo aanu 5 iyo eber aanu mataqaanaa uga badanay 5 gool waxa ka dhaliyay Blizon oo aniga aan ka dhaliyay iyo 2 gool uu ka dhaliyay Maxamed Nuur gool Ibrahim Qalar ka dhaliyay oo markaas mataqaanaa inoo ciyaarayay ciyaar waxay ahayd friendly match ciyaaraha friendly match waxay ahaayeen ciyaar ka xamaasad badan koobka sidoo kale saadiq yare oo asna mataqaanaa isna gool ka dhaliyay actually kooxda ilaa 2010 laga soo gaaro waxaan ka ahaa markaas player firfircoon baan ka ahaa oo dhaxda iyo baalka uga ciyaara kabacdi 2010 waan cuslaaday xaas baan noqday waa guursaday kabacdina markaas waxaan ka noqday hogaamiye gudoomiye ku xigeen baan kooxda ka noqday ama director in mataqaanaa kooxdii hogaamiye u noqdo go'aamadeeda iyo mataqaanaa horumarinteeda dhalinyarada cusub oo markaa daad yarta khatarta ah suuqa markaas loogu jecel yahay mataqaanaa la indheeyo baan kooxda ku soo dari jiray hogaamiyahan ka ahaa ilaa meel fiican baa mataqaanaa kooxdii la soo gaaray banaadir magac xilli dambe waa laga bedelay samtel baanu mataqaanaa contract iyo heshiis la galay kooxdu waxay noqotay kooxaha markaas big four kooxaha markaa ugu awoodda badan maxaa la oran dhaqaale ahaan iyo taya ahaan intaba intaas anigu markaa waxaan ku hoos waday kooxdeeda haafka kooxaha jirtay power of half la yiraahdo oo markaas kooxaha ugu awoodda badan maxaa la oran jiray gobolka ama laba marwanba ka ahayd maxaa la oran jiray haafka markaan Gironi ka dheeri jirnay xaafadaha markaan ka ciyaarayna waxa la balansan jiray oo iyagana mataqaanaa haafka qaabkan u ciyaarayna tay ka helaan waxana balansan jiray ragga markaas gobolka ugu weyn sida Mazinga iyo Sisi iyo ragga haafkana khatarta ka ah oo mataqaan ragga la yaqaano gobolka Legends ka ah baa maxaa la oran jiray haafkana balansan jiray dhiirigelin bay noo ahayd markaas waxaan sameeyay jirnay waxaan kooxda ku soo dari jirnay ragga khatarta ah waxa uu ciyaari jiray Axmed Baraf waxa uu ciyaari jiray Coon maxamed muuse jaalla uu ciyaari jiray Ibrahim Qalar baa uu ciyaaray Saadiq Yara uu ciyaaray yani Said Umar baa uu ciyaaray Sharmaaka Cagabeel baa uu ciyaaray waxa uu ciyaaray ninkii la oran jiray Najib Qudunha uu ciyaaray Maxamuud Dayax baa uu ciyaaray yani ragga key players ka magaalada ka indhaha dadka ay ku hayaan baan kooxda ku soo diri jirnay anytime mataqaanaa heerba mataqaanaa waxa jirtay markii gaalkacay aan ka noqonay ampitin kooxaaf oo naga badis markii aan weynay bandar magaalada aan ka guureynaa magaalooyinkana aanu aadno oo si awoodiyada aan ugu tijaabino gobolada kale waxaan xasuustaa gudoomiyii sportiga markaas Absaaq Nuur Halaac nin la oran jiray oo Garowe mataqaanaa gudoomiye sportiga ka ahaa baa wuxuu sukansaday ragga Garowe la yiraahdo waa ugu qatarsan yihiin haafka oo la dhihi karo baa na balansaday gaalkacayaan ku safarnay iyadoo waliba ay adag tahay kooxaha waaweyn ee seeraada inay safraan oo safar ay galaan ay adag tahay baanu dhaqaale ahaan iyo koox ahaan iyo dhalinyaro ahaan oo koox ahaan baan waxa uu quality inaan safri karno safar baan u tagi jirnay Garowe 2007 xilligaas
saasoo tahay haddana garow waxaan ka soo noqonaa unbeaten inoo safar garow galnay baa waxaan dhacday in la isku badin waayo oo mataqaanaa kooxii garow inaga badin waayo waliba aan ka badino ka bacdi kooxii raggii waa la kala tagtagay raggii waa la kala cuslaaday markaas haddana waxaan sameyn jiray hogaamiyaan ka ahaa aniga Ibrahim Galar baa hogaamiyaal ka ahayn waxaan sameyn jiray markaas haafkii waa sii wadnay oo waxaan keeni jiray ragga markaas dhalinyarada ah oo ugu cadcad mataqaanaa khatarta ah waxaa ka mid ah jaamac yara ka mid ah waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Faaji waa ka mid ahaa ragga dhalinyarada markaas Cabdixaafidka hadda gobolka loo qaataa ka mid ahaa ragga dhalinyarada markaas ugu cadcad gobolkan dhalinyaro ahaan iyo quality ahaan baan mobilize garan jirnay u ciyaari jiray waxaan xasuustaa Cabdullaahi Sheekh garoonka ugu horeeyay roog ah oo la dhigo Garowe markuu furayay wuxuu yiri kooxdan laga badbadiyo Power of Half leeyado waa inaan casuumaa oo aan garow ugu yeeraa garow ma taqaanaa nagu marti qaaday gaarka waxaan leeyahay mar labaad 2014 markii ugu horeysay garoon rooga laga furo garow wuxuu yiri waxaan u baahanahay Power of Half kooxdaas aan ma taqaanaa rabaa inaan ku open gareeyo garoonka leeyado Garow Fitness Center xasaasa marka garow aan ka tagnay markaas waxa uu ciyaaray kooxda Adam Fardub uu ciyaaray Cabdiraxmaan Faaji uu ciyaaray Jaamac Yara uu ciyaaray yani rag khatar ah oo maxal oran jiray baa ma taqaanaa kooxda ma taqaanaa marka uu ciyaaray garow aan tagnay tabtiyo kale wala ka bidan waaye waxa haaf waa taqaanaayo 1 hour baa leela 2 hours aan dheel saacadii koo lagu kala bixi saacad labaad lagu tahay nag marka guul baan oran karnaa anaga project hadaan galno waxay noo ahayd guul maadaama aanu gobol ka safray gobolkana aan tagnay marka waxa kale xasuud mudan Power of Half xiliyadii xataa aanu dhalinyaro yar ka aan ahaynoo goromada aan soo galinay waxaan la ciyaari jiray oo boonigayga jeclaa Qaadiraale Mazinga iyo Sisi rag markaas kiiga u ah gobolka rag weyn leeyahay legends ama role model sporting leeyahay saa loo fiiri waxay ka jireen kubadayada wax dhigi jireen nimanka haaf khatarta ku ah aanu ma taqaanaa la ciyaarno aan balasano sababtoo akhlaaq ahaan oo u diyaarsaneen quality ahaan banooni ahaan oo u diyaarsaneen marka ka bacdi sportigi markaas anagu kama bixin oo haafafkan markaas ma taqaanaa aanu ciyaareynay waxaan soo gaarnay xilli markaas anagu aan dhinaca kale xagga maamulka sportiga Gabshe oo markaas gudoomiye sportiska ahaa baa wuxuu ii magacaabay xogayaha sportiga gobolka ka bacdi administration koraan ku biiray xogayahan in muddo soo ahaa ka bacdina dhinaca sportiga waa ka leecay dhinaca dhalinyarada u batayo waxaan hogaamiye u noqday ama gudoomiye u noqday dalada ururada dhalinyarada gobolka Mudug ee Dudmudug oo hadda indhaa muddo 6 sano hogaaminay marka waayii sport intaasaan ka xasuustaa daafici waqtka oo aan banooni wada ciyaarno oo gobolkana aad looga baqo haduu la isiraado waa ku gooyay oo u gooyay hadii la isiraado waa ka daba imaanaya ama wuxuu ku gaarsanay la yiraahdo wuxuu ahaa Said Umar wuxuu ahaa defender wuxuu ahaa kooxda Comset difaacida markaas ugu qatarsan buu ahaa wuxuu ahaa defender wuxuu ahaa Power of Half markii uu horeysay isbaranay waxaanu defendernimadiisa waa naga hor yimid markaas anagu playerka markaa naga hor yimaada oo ciyaarihiisa inagu adkaato baan soo qaadan jirnay playerka markaa Power of Half ka hor yimaada oo la saadaalay Power of Half playerkan bi waa ka cabaweyda la yiraahdo baanu ma taqaanaa baanu Power of Half aan ku soo biirin jirnay anigu runtii guulo badan baan gaaray guushii waxay ahayd koobab وعدك هرتا قبل كاني وحعدك إن كوب وين لدقة عدك ظروفها حكا دقالها مركا قوش دي أن هذا الصفة وحسستو أن كوب روحه واحد قول أن كجارني حلقي بنادر أنا وعياري كوحدة دولة هوس ومركز حلي إبر أنا وبدني مركي نعاف كل هذا قولها هي جست بتشوك بهاي وقبل كان بو الكبد وايشري إلى أن وتقنا قبل هذا كله واحد شرتي حلي لما بكون يسدد waxaan kamid ahaa xulkii uu xulay gobolka Mudug inay u ciyaaraan loo xulay baan kamid ahaa 2008 oo Maxamed Cabdulla hogaaminay laakiin misfortunately ma ciyaarin xulku waa la xulay dhaawac baa wuxuu iga soo gaaray lowga markii dhalinyarada la xareynayo tababarka loo xareynayay
dhaawacay soo gaaray dartiis baan aan kaga haray inaan u safto xul gobolka Mudug wallahi way jireen waa inkastoo guuldarooyinkii ay yaraayeen xilliga kubadda cagta aan ku jiray laakiin waxa jiray guuldarooyin la soo gaaray oo xilligii waxa jiray xaasta mar kooxda Yamaska ay naga badisay oo runtii kooxaha Big Four-ka way isfiirsan jireen mar waxa jiray kooxda Yamaska oo markaas kooxaha ugu khatarsan ahaydoo ay u ciyaareen Allah u naxariisto Kayse iyo Xamday Baraf iyo qatar ay markaa u ciyaarayeen oo inaga badeen baa jirtay oo mataqaanaa maadaama rag dhalinyaro isku looda challenge gareyn aan ahayn guuldarraasan xasuustaa iyo aad mataqaanaa iyo xanuujis team hadaan ka hadlo kooxdeeda riyada waxa weeye Boorteeri waxaan ka dhigan lahaa Cali Jeeg daafaca lambar 5 waxaan ka dhigan lahaa Sayid Umar kuwaatan waxaan ka dhigan lahaa Muuse Gaab tareena waxaan ka dhigan lahaa Carato in la oran jiray qatar ahaa tareyaasha goolka soo maray ahaa doona waxaan ka dhigan lahaa Aadan Gaab dhexda markii loo yimaado waxaan jeclahay 3 dhaxa Saadiq Yare Muqtaar oo ragii ugu qatarsanaa ahaa gobolkan dhexda soo mara oo xiliyadii 2005 6 7 rag qatarta soo maray iyo Ibrahim Qalar iyo Saadiq Yare iyo Muqtaar saddexdaas waxaan ka dhigan lahaa dhax labada baalle waxa ka dhigan lahaa satana ana iska dhigi lahaa 11 ama mataqaanaa 12 waxaan ka dhigi lahaa Axmed Baraf 9 waxaan ka dhigi lahaa Beexaani nin la yiraahdo waxa dhici karta dhalinyarada hadda joogtay inay garan waayaan Beexaani wuxuu ahaa nin dhalinyarada reer Galmudug ah oo koonfurta gaalkacay ka soo jeeda oo kooxda Banaadir u ciyaar jiro waayihii aniga aan kubadda cagta ku jiray 9 gobolka ragga ugu qatarsan ahaa marka raggaasaan ka dhigi lahaa maxaa la oran jiray my dream team xilliga hadda aan joogno 2020 waxa gabagaba noo maray garoonka Cawaali Stadium oo runtii aanu ku dhisnay qaab isku tashi ah mashruuci ugu weynaa oo dhalinyaro u kacdo dal iyo dibad ay dhista ah dhalinyarada hadda sportiga oo kubadda cagta ciyaarta way ka fursad fiican yihiin ragayga hore oo kubadda cagta soo ciyaari jiray marka tala ahaan waxaan soo jeedinayaa number 1 dhalinyarada inay ka faa'iideystaan garoonka kubadda cagta ee Cawaali Stadium dabcan qorshayaal ayaa loo sameyn doonaa tartamo ayaa loo qaban doonaa waxaan rabnaa in gobolkan wuxuu ku caabaxay ciyaartooy qatar oo ku caabaxay sumcaddii iyo sharafkii iyo waxa weeyaan waayihii xiliyada adkaa ay dhalinyaradaas ay ku noqdeen qatarta ay ku noqdeen legends ku noqdeen sumcadda ay ku yeesheen waxaan rabnaa maadaama xilli casri ah hadda loo gudbay garoon casri ah ay haystaan inay lambarnoorta ay ka faa'iideystaan ay kaga faa'iideystaan casri ahaan uga faa'iideystaan quality ahaan uga faa'iideystaan taya ahaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada hadda xilligan jirta waxaan rabnaa insha Allah inay lambar 1 ay kaga mashquulaan falalka gurcan second inay kaga mashquulaan tahriibka iyo mataqaanaa sifaha waxyaalahan mataqaanaa dhibaatooyinka u keeni kara marka saddexaad inay kaga mashquulaan waxyaalaha shaqaaqooyinka garoonka hadii la dhiso xataa shaqa abuur baa dhalinyaradu mataqaanaa ay looga dhex sameyn doonaa hadduu aan leedno marka waxaan rabnaa inay quality-gooda balooni ahaan iyo taya ahaan tartamo caalamiga garoonka lagu qaban doonaa caalamka laga yaabaa kooxaha caalamka in lagu casuumo gobolada kale ee Soomaaliya la rabaa in lagu casuumo gobolkaana in mataqaanaa dhalinyaradaas ay ku xisaabtamaan inay noqdaan dhalinyaradii hogaamin lahaa sportiga Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo number 1 saaxiibkay hor fadhiya wareysiga iga duubay Yusuf Carab oo runtii laftigiisu wuxuu ahaa raggii 2009 2010 raggii gobolkan maxaa la oran jiray ilaa 2020 xilliga aan joogno raggii sportiga ku soo dhex jiray markii laga yimaado mihnadiisa saxaafadeed iyo shaqooyinkiisa kale markii laga yimaado raggii wuxuu ahaa sportiga tabin jiray oo idaacadda codka nabadda iyo raggii u tabin jiray oo ahaa waa u mahadcelinayaa maanta wareysigan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkay hanfada saaxiibka u mahadcelinayaa runtii wuxuu sameeyay wax la yiraahdo sportigii la ilaabay oo raggii hore ah buu taariikhoodii wuxuu dabagal ku sameeyay in sportiga hore la nooleeyo la soo kaciyo taariikhdooda aan ilaawin oo dadka hadda jiilka cusub loo sheego looga sheekeeyo ama mataqaanaa la tuso raggii hore in hadda aad xasuusanaysid dadka igu bartay arrimaha kale dhinaca sportiga inaad xasuusid waa kaaga mahadcelinayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo
kooxdeedii aan waqtiga la soo qaatay Banaadir Telecom Kabtan Garre iyo raggayga mataqaanaa Cirbe runtii raggayga mataqaanaa aan waayay sport mataqaanaa la soo qaatay saaxiibkay Ibrahim Qalar Saadiq Yare oo maanta Ibrahim Qalar waxa weeyaan waa macalinka xulka kubadda cagta Puntland runtii meel fiican buu ka gaaraa oran karaa sportiga mataqaanaa Puntland iyo Soomaaliya maanta inuu sharaf ay tahay waa inaan ku faanaa maanta inuu leeleeyo xul kubadda cagta mataqaanaa Puntland halkaan aan ka salaamayaa waan u mahad celinayaa raggaygii Power of Half oo waxa weeyaan ila soo ciyaaray raggii aan soo maamulayay oo aan mataqaanaa hogaamiyaha u ahaa oo raggii dhalinyarada ahaa iyo raggii aan isku waayaha ahaynba intaba u mahad celinayaa waxaan leeyahay Power of Half ha guulaysato all the best